يو إله كلمة يشيرو أذيك مويانا آخر هذا الله ولا سعودي لقو أرورايو أنا ذيك مويه مرنا الله naxariistay Aban Jaamac Kadiye waxa uu ku dhashay magaalada Lascaanood waxa da'diisa lagu qiyaasay da'da 70-meeyada Abanka waxa geeridiisa sababay duqeyn ciidamada Soomaaliya u geysteen magaalada Lascaanood Aban Jaamac Kadiye ayaa lagu xasuusaa mid kamid ah gabayadii uu aadka ugu caan baxay ee uu kaga hadlayay in qof kasta oo diinada awood ku leh mar uu ka tagi doono waxa uu gabayadaasi ku muujiyay wacyigelin ku aadan sahayda aakhiro waxa gabayadaasi kamid ahaa isaga wuxuu doonayaba cidii la waastayne waxba kama qarsoon oo qalbigu waxaan hadduu yeesho wixii waliba waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimaane ogaada oo watiin iyo zulsilad weedha hadalkiisa والعصر والليل iyo an'am ama Allah naxariisto wuxuu abwaanku gabayadiisa uu kaga hadli jiray midnimada iyo isku duubnida ummadda Soomaaliyeed waxa uuna caan aad ugu ahaa inuu ku wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed gabayadiisa waadka ugu caan ka baxay Allah naxariisto abwaanku waxa geeridiisa sabab u ahaa duqeyn ciidamada Soomaaliya u geysteen magaalada Lascaanood maanta casarkii abaarkooy 10 iyo badh casarnimo gaara maqribkii Allah naxariisto abwaanku waxa ka taxsiiyay dhammaan ummadda islaamka meel walba joogan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ahaa ummadii uu ka baxay Aban Jaamac Kadiye abwaanka ayaa inta badan gabayadiisa kaga hadli jiray qaabka ay Soomaalidu isku dumnaan lahaayeen gabayadiisa waxa kamid ahaa xiliyadii dagaalkii 77 Itoobiya iyo Soomaaliya dhaxmaray oo aad ugu tiriyay si ay muwaafaqo u yeeshaan Soomaalida ciidamadoodana ay awood ugu lahaayeen sidii uga adkaan lahaayeen gumeystii Madoobe Itoobiya